Uur qaadis ama uur yeelasho. Haddii labada qof ay doonayaan caruur, waxaa muhiim ah in ay isku tagid ama isku galmoonshaha uu dhaco meesha loogu talagalay dhinaca siirka, idinkoo isticmaalayn wax uurka looga hortago sida kondomka. Haddii hal sano ka bacdi uu meeshaas uur imaanin, labadiinaba waa inaad takhtar la xiriirtaan ood baaritaano martaan. Uur iska ilaalin ama ka hortagidda ilmaha. Marka haweeneydu aysan doonin in ay uur qaaddo ama yeelato, waxaa jira habab badan oo kala duwan oo ilmaha ama uurka la iskaga ilaaliyo. La-taliyayaasha ama takhaatiirta waxay kugu talin doonaan habka ugu wanaagsan ee macquulka ah ee caafimaadka, waxayna kuu qori doonaan kaniini ama cinjir siilka lagu xiro, ama bahal garabka lagu xiro asna hormoon sida talaalka oo kale ah. 3 bilood mar aad qaadanaysid. Uur qaadis ama uur yeelasho. Haddii labada qof ay doonayaan caruur, waxaa muhiim ah in ay isku tagid ama isku galmoonshaha uu dhaco meesha loogu talagalay dhinaca siirka, idinkoo isticmaalayn wax uurka looga hortago sida kondomka. Haddii hal sano ka bacdi uu meeshaas uur imaanin, labadiinaba waa inaad takhtar la xiriirtaan ood baaritaano martaan. Uur iska ilaalin ama ka hortagidda ilmaha. Marka haweeneydu aysan doonin in ay uur qaaddo ama yeelato, waxaa jira habab badan oo kala duwan oo ilmaha ama uurka la iskaga ilaaliyo. La-taliyayaasha ama takhaatiirta waxay kugu talin doonaan habka ugu wanaagsan ee macquulka ah ee caafimaadka, waxayna kuu qori doonaan kaniini ama cinjir siilka lagu xiro, ama bahal garabka lagu xiro asna hormoon sida talaalka oo kale ah.